wafdi uu hogaamiye wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Dr. Axmed Aadan Buuxan ay ka mid ahaayeen maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta si wada jir u soo kormeeray wadada gabagabada ku dhow isku xidha Boorame iyo Baki. Wafdigan ayaa markii ay gaadheen soo indheeyay shaqada baaxadda leh ee ka socota wadadaasi, waxaana ugu horreyn madashaasi kala hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay xalka uu marayo dhismaha jidkani injineerka gacanta ku haya dhismaha wadada. waxaan soo degnay bishii koobaad ee sanadkan waxaan naga dhan carakaawadeedii 8 kilomitir carakaawa waanu dhamaystirnay oo ciid final u harsan buurtii aadka u adkaydna dhammaan ka tikeedii inkastoo meelo yar nagu harsan aad baan iyadana u dhamaystirnay maanta aan arkayno in wadadii gabagaba tahay wixii Soomaali hore uga mid waxay tiri wixii rago kaco rabbina aqbalo wala arkaway loon aad iyo aad uga mahad celinaya wasiirka qorsheynta oo isagu u tafaxaytay suurtana galiyay in ay lacagtaasi iyo laga daayo cid kale loo dhiibo wasaaradda loo dhiibo hay'adda wadooyinka loo dhiibo Somaliland si dawladii ay u muujiso wax qabadkeedii. inta kadib gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye iyo sidoo kale maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland Mawlid Nuux Ibraahin oo madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay jidkani iyo ahmiyadda waxaan gaarsiinahay horumarinta wadooyinka shaqaalaheeda iyo madaxdeedaba yani waxaan wali aragoonaan maqalbayna tuseen nimankaas shanta aroortii ilaa kooda maalintii way shaqeeyaan shanta aroortii day shaqada ku jiraan waxa weyn hadaan hay'adaas jireen wadadaas inta ma soo samaysateen maanta hadaan xildhibaanadii aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa sida la socotaan degmadan Baki waa degmo wax soo saar weeyaan dadweynaha reer Baki marka la weydiiyo baahidooda 100 jeer bay ku ceshaan inay wada ahayn maantana meel fiican bay u maraysaa insha Allah. Somaliland waa meesha kaliya ee wada xumo inta leegay ka jirto wakaaladda horumarinta wadooyinka waxay ka mas'uul tahay 23 degmo doorasho wadanka Jamhuuriyadda Somaliland waa meelaha ugu adka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu amar cad ku bixiyay sidii la isku baneyn lahaa Boorame iyo Baki khayr Allah siiyo wasiirku wuxuu ka ahaa qayb libaax leh bilowgiisii ilaa markii koobaad ee wadadaasi la bilaabay waan ka wada soconay ninka dabada ka riixay buu ahaa madaxweynaha arinka hanuu la wada tagnay ee la tagay waan rajeynayaa inayna hadambana kulay si fiican uga sii shaqeyn doono mar hadii yahay wasaaradda qorsheynta wasiirada uga hawsha badlanaya. gabagabadii waxaa madashaasi hadalka qaatay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Dr. Axmed Aadan Buuxan waxaana uu sheegay in wadada Baki iyo Boorame noqon doonto mid lagu guuleysto dhismaheeda waxaana uu baaqo diray qurba joogta reer Somaliland inay ka qayb qaataan dhamaystirka wadadani. shalay waanu cabanaynay dhulkaasi dariiq ma lahayn maanta waxaana saaran Ilaahay ugu mahadnaqno in aanu maanta albaabkii Baki gudaha u galayno annagoon maraynin dariiqii cuslaa ee dooxa ahayd Sobakarmood oo marka cabirkiisa imika la sheego oo ku dhawaanay inta aan soo goynay 16 kiiloomitir wax ku dhawaada taas waa Ilaahay fadligii mahadda qaybta labaad waxa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda oo markaanu ergada ugu tagnay la fariisanay runtii si hagar la'aana maareeyaha ila jooga iyo wasiirka gaadiidka horumarinta dadka toos ugu amray oo yiri meeshaasi mudday iga xidhneeda fura wixii qalaba geeya madaxweynaha sida uu noo garab joogsaday Allahay wixii rago kaco rabbina aqbalo way rumoobaan dhaqaaqii aanu dhaqaaqnay ugu horeeyay waxbaanu keenay noo bilaabmay qaybtii labaad oo noqonaysa carratuurkii in la saaro goobo fara badan bariijadii in la dhiso iyo in daamurkii la saariyo jaygii baan noo hadhay intaas ay noogu hirgasho waxaan u baahannahay iskaashi kaamila inaynu ka yeelano garbaas qabsano qurba joog iyo qolqol joogba waxa farxadii ku wadaa in aan mas'uuliyiinta qaranka u sarreysa aan la hadlay arinta jayga dabadeedna estimation rafa ay soo gudbiyeen aqoon-yahankeena injineeradii ay sheegeen inuu baahan tahay 500 lowr oo jay ah ballanqaadka 500 lowr ee jayga waan hayaa maanta waan noo hayaa wixii la saari lahaa sida loo saari lahaa taladeedana inaga u wada joogno. geesta kale wafdiga uu hogaamiye wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Dr. Axmed Aadan Buuxan ayaa u sii kicitimay gudaha degmada Baki waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaasi oo dareensan kaalinta uu ka geystay wasiir Buuxan ee dhismaha wadada muhiimka ah isku xidha Boorame. wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka maareeyaha hay'adda wadooyinka xildhibaan isaguna maxaa wafdigan hogaaminayay ka degma ahaan isaga ayaa ku soo dhaweynaya si aan waftiga kala qaybiisa kala ugu qayb way hoosaysaa dadkeeda bableeshkeedu waa wax yar marka la eego degmooyinka loo eego degmo walbana bableeshkeedu inta leeyahay macaawinada ay ku heshaa oo lagu caawiyaa
amba loogu dhugnugulaadaa dadkeennu hadduu yar yahay dadkeenna tiradiisu hadday yar tahay mar walba waxqabadka laynoo qabanayana wuu hoosaynaya markaa waxaa layna leeyahay kaarka qaata tiradiinnu ha badato bishii labaad bayna soo gaadhay waxtarkeegiina waynaga arkayno buurtii aynu 100 sannadood hoos joognay aynu ka bixi kari lahayn ayuu maanta waftigu ka soo dhaadhacay ilaahay mahadi weeyaan degmadu kaarka diyaar bay u tahay wayna qaadanaysaa diyaar bay u tahay wayna qaadanaysaa waxa weeyaan saddex calaamad sheegaya saddex qodob mid masiirkan kula yar kaftamayaayo waa niyow reer aan ahayn niyow raggii noo dhali jiray reerka ku dhalay ee adadka horta calaamooyinkii baa kaa muuqda oo sidii ahayd waxa weeyaan ragga waa la garanayaa reerka ku dhalay raggii aad ka soo jeeday waxaa ka shuruuda waa la garanayaa ninkii garanaya soo gaarnayoo raadkoogii baa la garanayaa mid kale waa niyo hal awr iminka loo tuyinayo inay rimi doontiyo in war loo hayn iyo hal dhashay oo la maalayo horta sidee u kala midaad qaadanayna horta reer bakoo isweydiinaynaayo dee hashaa dhashay ee maandeeq la yidhaa ayaan dee maalaynaa hala sooma maalno annaga maanta istareex baan ku nahay mar haddii waddadii boolkii iyo edaggii aan ku jirnay muuse waa naga furtay waxa weeyaan wax noo hadhani ma jirta annaga sidaasay noogu dhammaystiran tahay waxqabadkii abaalkaasina waan celinaynaa waa ka mahmaahayo hasha irmaan baa tahay hasha irmaaneen lisayno ee maandeeq la yidhaa wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaan u ballan qaadaynaa tabac badan baadna geliseen in badan baad xil iska kaaya saarteen wixii aad ballan qaadeen markii la ololaynayay waad fuliseen waxaanan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya afka dadweynaha in abaalkiinna aad ka arki doontaan marka doorasho la gaadho goobaha codbixinta ku dhiirigelina dadweynaha reer Baki ee maanta halkan isugu yimiday inay kaarka qaataan kaarkaasi oo aad ugu xidhnaan doona waxqabadkiina iyo kolba waddanka meeshaad ka galasaan iyo qiimaynteennaba guud ahaanba marka waxaan idinku dhiirigelinaa maadaama horumarkii uu socdo horumarkiina lagu qiimeynayo tirada dadka inaad kaarka aad u qaadataan rajaynayna haddii alla yidhaahdo markaan intaas samayno kaarkaasi la wada qaato ee waddadaasina isku furanto inta dambe inay cid walba ku xisaabtami doonto codka gobolka yaalla ama degmada taalla sidaas iyadoo codka lagu xisaabtamayo laameydaya inaha dhimanna soo raaci doonaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan iniga mahad celinayaa soo dhoweyntiina quman intaa kadib xildhibaan Bashiir Xuseen Xirsi oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Mawlid Nuux Ibraahin iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxan oo soo kormeeray goobaha ay ka socoto diiwaangelintu ayaa bulshada deegaanadaasi aan horay u qaadan kaarka codbixinta ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadan isla markaana ay qaataan kaarka codaynta waa ilaahay mahadi dariiqii oo soo furmay waxa hadhay maanta waa qurxin oo ah in la yar qurxiyo la wanaajiyo oo wixii dhiman lagu daro sida daamurka iyo jaygii iyo biyasaaradii iyo laydh iyo wixii la heli karayo waxaan damaanad qaadayaa anigoo Axmed Aadana in aanan ka hadhin ilaa magaalada laami lagu soo xidho ee Baki soo gasho gudaheeda waxaan iga keenaya taasna xaqiiqada gunta ah ee degmada Baki ay tahay baa iga keenaya dad runtii wax soo saar leh dad horumareed garaadkoodu aad u furan yahay degaan maanta ummaddu wada degan tahay oonan xaafad gaara lagu shaabadaynayn haddana sida ay tahay ilaahay xukunkiisa ku fulnaa oo qof yimaada mid marti ah iyo mid ganacsada ah culays ku ahayd soo galitaankeedu aynu ugu abaalgudaynaa xukuumadda haddaba waa sidaa weeye waxaan ugu abaalgudaynaa maxay fartaan ugu abaalgudaynaa soo ma aha waayo qofka halkaas soo furay waad garan kartaan makaanku inagu leeyahay Bakina waan naqaanaayo dadkeeda degani dad abaal la weeyaan hawsha waan isku balansanaynaa dadaalkeena aan wadno
dadka yar jiifsaday meelaha joogan aan soo kicinno waxaan rabaa inaan xuso in badanoo inaga mida ayaa waxay haabanaysay way fashilantay way xumaatay war ma ka soo boodin mise kamanu soo boodin saaka soo ma arkaysid waa 4 bilood rabadaan ku jiro waa bishii labaad saddexaad afraad shanaad baa dhamaatay lixaad maanta inta la eg sida loo soo jabiyay ee meel banaan laga bilaabay ilaahay jannada ku geeyo jannada Allah ku geeyo dhamaan shaqaalaha wakaaladda gaar ahaan waliba inta inoo rafaadaysa buurta dur saaran maanta ee ugu soo galnay oo cadceed hoos fadhiya oo teendhe lahayn oo waxba lahayn oo maryo yar iyo wax ku xidhay har ka dhigtay ee 4 bilood joogay inaan ilaahay ugu mahadnaqno iyagana u duceeyo Absalaan Bashir Farax Absalaan Saha warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Boorama